kusoo dhawaada waa macalinka nolosha Axmed Isxaaq. Dhakhtaradu waxay sheegaan ilaa iyo 6 ilaa iyo 10 shay oo inaad share gareyso ama dadka la wadaagto aysan wanaagsanayn oo ay ku ahaato wax adiga kaliya ku quseeya naftaada. Haddii aad dadka la wadaagto waxay keeni kartaa dhibaatooyin badan iyo isfahan darro badan oo dhinacaaga adiga kugu soo laaban doonta. Hadalkan aan sheegi doono waxyaabo badan oo la yaabi doonta ayaa ku jira, laakiin waxyaabo cilmi lagu ogaaday. Cilmi baaris ayaa waxay sheegtay qodobadan inay sir ku ahaato ayaa wanaagsan mar walba. 6 shay oo qasab ah inay sir ahaato mar walba. Lambarka 6 haddaan ka soo bilowno, waxyaabaha aad leedahay oo hantida ku ah adiga ayay sir ku tahay. qof walba oo adduunka jooga wuxuu jecel yahay inuu hanti yeesho, inuu guri yeesho, inuu gaari yeesho, inuu dooman yeesho, inuu magaalada dhan gato ayuu jeclaa lahaa. Laakiin ogow, maalinka aad hanti yeelato dad yar oo kooban ayaa kugu farxi doona sida familkaaga oo kale iyo dadka kuu dhow. Inta kale laakiin way ku xasdi doonaan. waa calaamadaha bini'aadanka lagu yaqaano. Marka sirtaada ha ahaato hantidaadu waxay tahay. haddaad gaariyo leedahay, haddaad guryo leedahay iyo haddaad bangiga lacag kaaga buuxdaba sir ha ku ahaato. cilmi nafsi la baara ayaa sheegaya in bini'aadanka ishiisa bini'aadanku xaasidka aad ugu badan yahay iyo dadku inay kaa masayraan waxa aad haysato. Lambarka 5 xifdi ama sir ha ku ahaato qorshaha iyo goolasha ama yoolka aad ka leedahay noloshaada. Culimada nafsta ayaa waxay sheegayaan in qofku markii uu qorsho ama hadaf ama gool uu leeyahay oo ka hadlo oo qof saaxiibkiisa ugu sheego oo ku nafiso maskaxdiisu inay iska dhacdhici doonto inuu wixii sameeyay. Hormon waxaa jira wixii aaminaya markaad ka hadasho inaad samaysana aad iska dhacdhicinayso oo samaynin. Marka waxa fiican qorshahaaga iyo goolkaaga inay secret ku ahaato oo adigu kaliya aaminto oo qofna u sheegin. Markaas waxa dhacaya qofkii ayaa inta wixii u sheegto oo qorshihii ka helo ayuu ku faaninaya, adigana maskaxdii waxaad iska dhacdhicay inaad samaysay maadana samayn. Marka waxa fiican waxa secretka inay ku ahaato hadafkaaga iyo goolkaaga inaad isku haysato. Lambarka 4 problemyadaada ama mashaakilkaaga ama ciladaha noloshaada ku soo wajahay ama isbedelka nolosha oo kugu socda iyo dhibaatooyinka ku haysta qofna ha u sheegin ilaa uu yahay qof aad isku hubto oo family ama qof saaxiibka ah oo aad kugu dhow. qof aan ahayn ha u sheegin. badanaa dadku problemkaaga way dhageysanayaan laakiin qiimo iyo dhadhan kuma hayo mana qiimeynayaan. dhibka ku haystana ma dareemi karaan. hana u sheegin qofna ciladaha iyo duruufaha adiga ku haysta. qofna ha u sheegin ilaa dadku dhadhow maahane ood isku hubto. ugu yaraan dadku markay ku dhageystaan ay kaa neefiyaan maalmo markii laga soo wareego ma xasuusanayaan because qof walba ciladiisii ayaa ku culus. marka ciladahaaga ama problemyadaada qof walba ha la sheer garaynin, hana u sheegin. waxaa laga yaabaa qofkaas inuu maalmaha ka mid ah oo ciladahaaga adiga kugu isticmaalo, adiguna maalinkii markaad nafista aad ilowdo wixii kaa soo baxay oo dhan. waxyaabaha marka ciladaha iyo problemyada adiga ku haysta oo ku quseeya waa inay secret ku tahay. qodobka 3 waxyaabaha khayrka ood samayso sida sadaqo. qof duruufaysan ood sadaqo siiso bil walba ama sanad walba oo joogtaa. qof indhoola ah oo jidka goynayood ka caawisay. qof saaxiibka oo duruufaysatood lacag iyo waqti geliday. qof dhibaataysan oo xoogaaga iyo waqtigaaga geliday. ha sheegin wax walba oo khayr oo samaysay ajarkeeda ayaad leedahay. ha sheegin, secret ku ahaato. marka kaliya oo la sheego waxyaabaha khayrka ood samaysay waa markaad rabto inaad baraarujiso dad dhaqaalaha bakhiil ku ah ood rabto inaad u muujiso inay kugu daysadaan maahane. marka kale waxaaga waa la qarsadaa. wax walba oo khayr oo samayso aday ku fiicantaa oo sadaqa ah. marka qof aan aqoonin sida sadaqa loo bixiyo ama wax loo qabto ama waqti dadka loo geliyo inaad barto oo ka faa'iideysto markaasoo kale waad sheegi kartaa. aduu marka haddaa masjidka inta tagto dadkii cunto u qaybiso dadkii caawiso ha sheegin. waa waxa aad ajar ka helayso oo adiga ku anfacaya. lambarka 2 ciladaha familiga ama qoyskaaga quseeya ha ka hadleen. haddaad qof walaalka ah oo familkiina ah isdagaashaan qof kaloo saaxiibka ah kala hadlin. for example walaasha aad isku dhacdeen waxaa iskiin maray qof saaxiibka ah aad hadhowti la kulantay ayaad ku nafistay. walaasha iyo problemka walaasha iyo adiga idinka dhexmar ayaad ka hadashay. hadhowti waxaa imaan karta qofkaas inuu walaasha ama walaalka adiga kula dhashay oo problemka aad uga sheegto inuu hadhow u isticmaali karo waayo markuu waqtigu soo gudbo. marka waxyaabaha familiga ka dhex dhaca walaasha ama walaalka ama hooyada iyo aabaha iyo gurigiina ka dhaca ha la sheer garaynin qofna. mar walba ha ahaato private. sababtuna waxa waaye mar walba oo qof saaxiibka aad u sheegto aad ku tiraahdo walaashay ayaan isdagaalnay ama ciladaas aan dhaxaysata ama walaalkay aan isdagaalnay adoo mar walba ku taageera qofka because adaa saaxiibkiisa. laakiin waxaa laga yaabaa maalmaha kamid ah inuu qofkaas informationka uu ka hayay oo adigu u sheegtay dartiis
oo dhinac kale u isticmaali karo. Culamaa u nafsi waxay sheegayaan wixii familkaaga iyo caa'iladaada idinka dhex dhaca inaysan gurigiina ka soo bixin oo dhexdiina ku xallisataan, qof kaloo saddexaadna aada u sheegin. Lambarka 1 noloshaada shakhsiyeed oo adiga ku qusaysa, qof walba ha kala hadlin. dad badan ayaysa qusaynin, adiga keliya ayay ku qusaysaa noloshaada khaaska ah. noloshaada personal lifekaaga adiga keliya ayaa mas-uulka ah, adiga ayaa leh noloshaada, qof kale kulama leh. Qofna ha u sheegin waxyaaba personal ku ah. Markaad ka hadasho marmar qalad ayaa loo isticmaali karaa. wax walba oo noloshaada oo go'aamo aad gaarayso ha ahaado mid adiga shakhsiyan kaa soo go'ay, ma ahan mid qof kale oo kuu gaaray. ha ahaado mid adiga kaa soo go'ay, hadhowna aada ka shalaayin. haddii kale qof kale ayaa go'aan kuu gaaraya. noloshaada personalka saaxiibada waxyaabaha aad ogala hadli karto, haddaa habit xun leedahay ama balwad ama wax xun ood samayso, ha sheegin. haddii wax xun aad samayso hadda ka hor oo noloshaada ay jiraan, adiga iyo ilaahay idinka dhexayso, ha sheegin. sababtu waxaa weeye maalin maalmaha ka mid a ayaa si qaldan loo isticmaali karaa waxaas. qofka waxa aad sheegaysana waa inay tahay hadhowti wax haddii la sheego ama laga hadlo aan adiga dhib kuu keeni karin. waxyaabaha adiga khaaska ku ah marka isku hayso, dadka ay qusayso sida familkaaga ama walaalahaaga iyo mahane, qofna ha u sheegin secretkaaga ama noloshaada. qof aan waxba kaa caawi karin waxba ha u sheegin. waxyaabaha personalka ku ah inaad ka fiirsato waayo qofka aad u sheegayso. sababta waxa weeye haddaad qof walba u sheegto, dad ayaa si qaldan u isticmaali karaa, waqti qaldanayna isticmaali karaan. adigu marka waxyaabaha personalka ku ah, choicekaaga, dhaqaalahaaga, naftaada, waxa aad samaynayso, waxa aad damacsan tahay, iyo didiilada qorshaynta, waxyaabahaas dhan waa wax adiga shakhsiyan ku quseeya. qof kale ma quseeyaan, qof kale go'aan ma gaari karo, adiga ayay ku qusaysaa. adigu marka waa inaad ka fekertaa sidee naftaada horumar u gaarsii kartaa. 6daa shayna waataan soo sheegnay, waa inaad 6daa shay ay adiga private ay ku tahay mar walba iyo secretkaaga, adiga ayay ku qusaysaa. qof saddexaad ma qusayso, qof afaraadna ma qusayso. marka 6da shay oo privateka ah mar walba in lagu dadaalo waa midda koowaad oo ah in waxyaabaha hantidaada inaada sheegin family problemyadaada, inaada sheegin noloshaada privateka ah, personal lifekaaga, inaada sheegin goolashaada iyo waxyaabaha rabta inaad samayso, inaada sheegin wixii sadaqa iyo wixii horumar iyo wixii fiican oo dadka u samaysay, inaad kala ilaalido waxyaabaha. waa barnaamijkii 6 shay oo intaas noogu eg. waa macalinka nolosha Axmed Isxaaq. waa mahadsantihiin. subscribe iyo like. dhegeystayaal haddaa barnaamijkan ka hesheen sii faafiya sidii viruskii, qof walbana la wadaaga. waa macalinka nolosha Axmed Isxaaq. waa mahadsantihiin.